anigu waxaan ku dhashay magaalada Bendelbayla oo kamid ah gobolada bari gobolada loo oran jiray Mujirtiini hore loo oran jiray waxay saddex baan ahay aniga wiil kale oo iga weyn Xasan la yiraahdo iyo gabar marka ilaa odagu doonyaanu lahayn doonidooda ugu qaaday Julaal Sanjabaar baan tagay anoo yar xusanaya Sanjabaar markaas waa barqashkii wax barqash ayaa waa midisku marka ma soo gaarin laakiin yaranteedu waa garanaya say tahay Sanjabaar marka dad doonyala baan anagu ahayn reerkii doonyulaha aabay doonyulaha doonyaas marna waxay aadi jireen ilaahu beerkan beelin ilaa Mozambique marna waxay jireen ilaa dhinacan hadba dabaysha la socdeen matoorma ahayn hadba dhinaca dabaysha ka dhacaysay aadi jireen marna dhinacaas cadan ilaa Ciraaq Basra wayahay ganacsan jiray wuxuu ganacsan jiray ganacsigu wuxuu ahaa badda kalluumaysiga libax baan la qaadi jiray oo la geyn jiray meesha la Sanjabaar la geyn jiray waxaan ka ganacsan jiray oo kaleeto meeshu awbay lahayd gogol bay lahayd waxa laga ganacsan jiray ganacsaas ah dhulku barwaaqo ahaa kalluunka mainly waxay u badnayd libax iyo kalluunka ay u badnayd doonyaanu lahayn doonyaas marka la tagay marka la aadayo muxuu ahaa ay Sanjabaar ba kalluunka libax la geyn jiray dabadna wax laga soo qaadi jiray halka raashin baa laga soo qaaday galeeyda iyo waxa soo bunka beerka iyo waxa laga soo qaaday marka dabayshu dhinaca u dhacday saas kaleeto gogol baa la qaadi jiray subag baa la qaadi jiray dooyuhu qaadaan dabeedna timir baa la keenay jiray laga soo qaadi jiray Basra ayaa laga soo qaadi jiray dadku dukaamaha la wada lahaa dukaan buu lahaa dukaanka anoo yar baan bilaabay oo ka bilaabay bayla ka bilaabay dugsiga waxaan ka bilaabay elementary muxuu dukaanka gadaya ayaan iskoolka elementary la bilaabay waan xusuustaa aniga macallimiintii ugu horeeyay waxa kamid ahaa loo oran jiray Maxamed baa loo jiray jeel ku yaqaan waa dadka u dhashay Sool laakiin Sood buu ahaa laakiin u dhashay Sool gobolka Sool u dhashay nin la oran jiray iyo macallimiin kale oo badan hadda aan xusuusan bay ahaayeen Carabiga Maxamed Daahir Hoori bay Talyaaniga la baray oo aad soo Itaaliya marka ka yiri rag Talyaani loo qaad ugu horeeyay uu ahaa macallin Maxamed Daahir Hoori waxaan loo bari jiray maadaama Talyaanigu la bari jiray waxaan wax ku baran jiray Carabi iyo Talyaani secondary hadaan elementary markaan dhameynay aniga nin Ali Xaaji Muuse la yiraahdo oo hadda Ameerika jira oo dabadna marka dawladda bad u shaqeyn jiray waxaan xamar baan loo diray intermediate meesha ma lahayn qaraan markaan maray gaalkacyo ayaa marka soo sii maray xamar baan tagnay halkaasaan ka bilownay iskoolkii intermediate ahaa xamar waxaan ugu tagay gabar walaashii lagu qaday xamar oo kaan baxay degantahay xaafadna Cabdi Aziz la yiraahdo way deganaa Halima Saciid Sanatul baa la yiraahdo hadda dhawaan bay ku dhimatay Denmark jaartay iyadan markaan ugu biray laakiin markiiba odagu maadaama uu lataa badna waxaan galay boarding school college Soomaaliya oo markaas ahayd muxuu ahaa Axmed Jadjib College ayaa wuxuu ahaa aan galay intermediate markaan bilaabayba oo 60 shilin baa la soo lisin jiray 80 baa la soo diri jiray 60 waxa lagu bixin jiray bishii wuxuu ahaa college-ka 20 waxa ay aniga xaglajeebkayga shaahiga noloshaas baan ku nooleynay ilaa markaan marayay galaaska labaad oo aan u promotion galaaska saddexaad ayaan waxaan ku noqday Bendelbayla dabadoodagu way igu dhago wuxuu yiri war meeshan hadaa u baato macallin baad noqonaysaa oo dukaanka qabso fariiso hal sana iga khasaaray marka dubayna dukaan ku gaday oday marka anaga dibutaati noo ahaa Xaaji Saciid loo shaqo loolan jiray waa bayli yimi marka odayga baan la kulmay odaygu wuxuu yiri war maxaad iskoolkan marka isaga wakiiliga ahaan jiray inuu ku fiicnaa ogaa iskool intermediate ku fiicnaa waxay maxaa odayga baa ii diiday baan aaba yiri joog meesha odaygu wuu la hadlay markiiba oo yiri war wiilkan faraha ka qadan ninka iskool ku fiican yahay faraha kala bax daa baawir ku yimaan ka odayga way ducay aab may ducaysaa gaarigan soo raacay xamar baan waxaan ku imisa marka galaaska waxaan ahaa markaas saddexaad waxay idinaan markaas galaaska koowaad galo oo secondary-ga codad baa ay gashay waxaan rag hal sano ka horeeyeen dibadda aan joogay markaasaan iskool magistraale oo la mid ah secondary la mid ah markiiba galay private waxaan u galay iskoolkiisa wuxuu ahaa galaaska labaad oo superior ah dadku waxbaa la baranayay private u balay waxaan u barmoosay galaaskii markaas labaad baan u barmoosay oo labaad secondary-ga saas aan u dhiganayo kii magistraale ana waa qaatay already macallin waxaan markaas markiiba la qaatay macallin oo macallin waxaan u galay hal sano oo meesha la commercial iskool commercial Carabiga Talyaani waxaan dhigi jiray xisaabtan dhigi jiray xamar baan ka dhigay commercial marka nolosha ugu fiican bay ahayd waayo
mushahar fiican baan qaadan jiray markaas ilaa 600 oo markaa u tirta baan qaadan jiray markaasi waa 60 iyo waa may waa konton waxa weeye 60kii iyo afartii weeye 64 ilaa ha 64 weeye anagu marka saasoo tii haysta wuxuu ahaa shahaadadii magistrale oo macallimiinta oo secondary u dhiganta iyo superior oo dhiganaya galaaska saddexaad ayaa waxa soo baxay la yiri imtixaan baa loo geliyay 10 sarkaal oo waxay yihiin guardian finance ciidanka lacagta ciidan yar buu ahaa dadkuna aad bay u jeclaayeen marka biliis ma jirin lama qaadan jirin wuxuu ahaa saraakiil lama qaadan jirin militariga loo qaadan jiray militariga lama anagu ma rabin marka maadaama uu ahaa wuxuu ahaa ciidan yar uu ahaa waxaan ka qayb galay imtixaankii baan ka qayb galay imtixaanka waxaa galay 500 qof baa galay oo secondary ka wada baxay kulli waxaan 10 baa la rabay lambarka saddexaad baan galay markaas ma jirin wuxuu ahaa recommendation imtixaanka waxaa qaadayay xilaliyaha guud oo markaa talyaaniga bay soo waqshay gruubka anaga naga horeeyay ma yaa tawaldiifnimadu waxay yiraahdeen ma xogaa la socon waaya saraakiisha la socon kari waayay waxaan niman markaa aqoon leh oo la gal oo la wuxuu ahaa saraakiisha wuxuu ahaa wardi talyaaniga lamida oo la qata duruusta oo aan special course loo furay baan rabnaa saas dalaad ba marka xeeraliyihii baa ka qayb galay imtixaan adag baan u galay hadda waa la joogay waxaan joogay ninka taliyihii markaas waardiyeynasada wuxuu ahaa Holif buu ahaa iyo Rex Holif uu ahaa saasaan marka Itaaliya ku aadnay markii Itaaliya toon baan ahay waxaan tagnay akademiyada waardiyeynasada finance gaar baa la akademi oo waxa la baraa economic sida loo baaro muxuu ahaa wasaaradaha iyo waxa tacliimo wasaaradda maaliyadda iyo customs iyo waxa lagu baray engineering iyo economic oo dhan baa lagu baraya waxa la yiraahdaa finance gaar academy waxaana la mid tahay jaamacad academy 4 sano weey 2 sano hore iyo 2 sano dambe marka dhamaysid duruustii jaamacadda wax yar baad diibaysaa 3 maadaad diibaysaa xagga muxuu ahaa ama dhaqaalaha ama sharciga ama injineering diibaysaa marka anagu 4 ma dhamayn maxaa waa naloo baahday 10kii waxa la yiri markii dhameeyaan midda hore 2 sano hore baan soo galay finance gaarka intaan Itaaliya jiray baa la baabiyay oo waxa lagu daray biliiska ayaa lagu daray biliis noqday ilaa maxaa saas ku noqday moogta 67kii baan markaas soo galay deelahaydno 67kan markaas waxaan ariga lay bedelay aniga caalim la yiraahdo waxaan loo bedelay Hargeysa anagoo soo Maxamed Abshir markaa waa maqnaa Jarmal buu jiray soo markaa xigeenkiisa baa joogay meesha oo qorsheela hal suuga la yiri ilaa madaxweynuhu yimaado Maxamed Abshir oo taliye biliiska qaadan meysaan rag baa ka xumaaday marka waxay yiraahdeen sirtan aadayna dabad anagu waa sugnay aniga ninkaas iyo gruub kale waxaan loo diray Hargeysa marka anagu marka aan xidig qaadan Maxamed Abshir markuu yimid noo yeeray xidig buu nasiiyay marka Maxamed Abshir baa nasiiyay maadaama waxa uu yahay 2 sano hore hadda dhamaysid in xidig aad qaatay 2 sano dambe waa 2 xidig halkaas marka shaqada ka bilownay oo xidig la ka noqday Hargeysa waa 68 dabad muddo Hargeysa joognay anu xidig la shaqeynayay berberan ka shaqeeyay waxaan ka shaqeeyay Hargeysa airportka tributaariyada waxaan ka shaqeeyay meesha la yiraahdo Ceergaabo waxaan ka shaqeeyay meesha la yiraahdo maxay Burco waxa tributaariyada waxaan ka shaqeeyay ciidanka ilaalinta canshuuraha baan madax ka ah oo ka shaqeynay I think 69 bilowgiisii buu ahaa anu xidig la ah Yuusuf Suuriye la yiraahdo oo markaas ahaa madaxtooyada laga soo bedelay markii dambe taliyaha qaybta xamarka aan jiray baa markaas taliyan oo ahaa Cabdirashiid Bayiyo markaas oo markaas waxay abaaro waqtiga Cabdirashiid uu wareegay gobolada intaan dilin bay ahayd anu xidig laan ahaa Yuusuf Suuriye waa maqnaa taliga ana isku hayay markaas berberax October bilowgeedu weeye Cabdirashiid markaas Burco ka yimid soo maray tuura boosaas muxuu ah bari iyo kulli waqti gobolada uu soo maray markii uu dhameysay oo meebin lagu soo diray habeen buu joogay maalin buu joogay dadku uu khudbeeyay wuxuu aan Hargeysa soo raacay baan ku jiray anu xidig laa Hargeysa nimid Hargeysa markaas waxa xukumay ciidamada nin la Maxamed Cali Mire gaashaan la saaray Maxamed Cali Mire waa loo jiray Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaa ku xigeen oo gaashaan la dhaxa Cabdullaahi Yuusuf Hargeysa xukumay Cabdullaahi Yuusuf kama qayb galin shirarkii wuxuu ahaa kama qayb galin waayo waxa jirtay waxay isku kacsanayeen Maxamed Siyaad ragii la bedelay oo ahaa la yiri inqalaab bay sameeyeen isagii aydiid iyo inqalaab bay sameeyeen baa la yiri aydiid Cabdullaahi Yuusuf isku bedelay marka Cabdullaahi Yuusuf ninka uu ka bedelay jagada ku xigeenka hoggaanka uu ahaa gobolada waqooyi bari oo uu ahaa aydiid uu ahaa marka maadaama Yaasiin Xasan Baday iyo waxa marka way xoogaa isku xumaayeen ragii la soo bedelay uu ahaa
وتجين سدح ذهبين وعبد الرشيد الجوجي هرجيس الجوجي وما وصل تجين وحمام بمركز السنة لو ده حنقلنا يا عبد الرشيد بكو تجاي وإيربورك هرجيس عن شلون ورجت كقريب قلب أنا عند اليربان هذا ها صوب وبان بحيو الله سبحانه السعودي سراكيشي محمد علي مرائي وحي بجوجي بليس كهاي كل ماشي محمد علي مرائي سراكيش أسريو إذا ماذا حوق مدحض وها يكون بليسكا كل والد تجي ماشي كفرتوري أحمد داهر بالأولندري أحمد داهر من هبل قدر أبوها كفرتوري هرقيس هوا أحمد داهر بالأولندري عبد الرشيد بحوا قرابة هاي سعد بوها سعد أبوها كل مرسالة تجي عبد الرشيد ومركز ديار رائل هذا كسر نقطة ديار كسر نقطة ديبو كسر نقطة دبدو حيري هل يقول عبد الله يوسف marka hargeysa airportka iyo hargeysa waxay isu jiraan 5 mayl diyaaradii baa la dimiyay roob yar baa da'ay halkaas marka Cabdullaahi Yuusuf looga yar keen law inuu aragsan yahay boga VIP wada galeen kulay wixii markaas wuxuu ahaa raadka wixii uu sheegay markii dambe waa Cabdullaahi la xiray waxaan warar ku maqlay inuu yiri inqilaab baa kugu socday ama soo magal wixii dhan uu sheegay dabadna Cabdullaahi waxaan maqlay inuu yiri haddaan tago xamar afrika gudahood baan ku yeeray Cabdullaahi markii dambe saasa laga sheegay waxaa la socday markaa qorsheel iyo cali karaan in la yiraaho oo hadde markii dambe isbitaalka anigu aan ka bedelay cali karaan oo isbaayo waxa aydi kaam waxa la socday waxa markaa saas wala saanood markaa ugu baxay loo diray adu ma raacin anu ma raacin dadka junior sarkaal baan berbereedan ku noqday berbere markaan ku noqday oo aan habeenimada baa markaa naloo sheegay oo saxardiid oo markaas group commandant ahaa oo ilaa la soo xakumay ilaa dugsiga ka soo la xakumay waa markaas biliiska la hadlay oo noo sheegtaan weelay Cabdirashiid waa la dilay dareenkaygu wuxuu ahaa aad bay u xumay dadku aad iyo aad baa loo jeclaa loo soo dhaweeyay Cabdirashiid aad baa loo jeclaa loo soo dhaweeyay dadka dhan baa ka xumaaday waxaan garanayaa Hargeysa berbera kul aad iyo aad baa looga xumaaday yani waxa dhici jirayna ma ahayd aad baan loo jeclaa nodayo la jecel yahay buu ahaa aad loo jecel yahay buu ahaa marka dadku waa ka xumaadeen haddee wax mustaqbalkiina wuxuu galay mustaqbal madow buu noqday wax noqon doona lama yaqaan maaskad baa la wadeegaysta Soomaaliya noqonaysa yaa la dooranaya oo dhan wareer bay noqotay dabeedna hadda waad ogeedo markiiba inqilaab baa ka dameeyay anu markaa berberan jooga xidigley baan ahay xidiglaan ahay weli lagama bedelin berberan jooga Xuseen Kulmiye baa berbere yimi oo aniga isagoo markaas taliyaha biliisku meel gaarka isaga ahaa Xuseen Kulmiye wasiirka daaqilkan isaga loo magacaabay horaan waxaan u weydiistay jaamacaddan soo dhamaysto marka jaamacaddan la weydiistay buu yiri ma rabtaa in jaamacadda soo dhamaysto waxaan yiri waa rabaa jaamacadda rabaa la bedelo waxaan filayay marka in la bedelo xamar burca la bedelay tilbutaari burca la bedelay adoo markii dambe too ilaa sanad iyo xoogaa burca joogay inqilaabkii dacay Maxamed Siyaad meesha qabsay maxaad dareeteen markaa oo qabsaday meeshaas wuxuu aragtay wallahi anagu waxaan isleeyay markaa hal dul laakiin runtii marka hore dadkii muxuu la yiraahdaa halal qabs hal shaqeeyo niyadu waa fiicnay inkastoo laga xumaaday dirka laga xumaaday bal hal ogaado anigu dhalinyaro marka aan ahaa xamar baa la bedelay xamar hadaan tagay wax markiiba laga dhigay jaamacad baa jaamacad waa ninka anaga tababaray Hargeysa lagu tababaray waxa isaga laga dhigay taliyaha booliiska laga dhigay dawladii hore oo Cabdirashiid iyo Yaasiin waxba isku xumaadeen oo wuxuu rag maxamed absir la jiray buu ahaa oo electionka lahaa waa xogaa yaan la farsamayn marka isaga markiiba waa la bedelay Italiya loo bedelay marka Italiya looga yeeray isaga laga dhigay markii dambe taliyaha booliiska isaga hadii uu markaa burca way soo bedelay wuxuu ga dhigay aniga taliyaha ku xigeenka wuxuu ga dhigay qaybta banaadir marka qaybta banaadir ilaa jawhar iyo waxa laga xukumay meesha la yiraahdo ilaa marka waxaan afku day Soomaali ma jiro Talyaani iyo waxa la qoray taliye waxaan oday la oran jiray Boodaleeg la oran jiray oo korneel ahaa marka wax walbana waxa lagu qoray Talyaani maadaama aan wada mutacalliman ahayn waa kale maqsoob ahaan ana marka ahaa Talyaani ku xigeen raboorada aan la qori jiray raboor ana qori jiray stationada waxa dhan ana qori jiray oo odaga gacan yar u ahaa halkaas markaan baxsan shaqeynay markiiba waxa la bedelay jaamacada u bedelay taliyaha saldhiga number 4 xamar markaas 4 saldhig bay lahayd saldhigaas number 4 oo hadda meesha CID-da iyo saldhiga dhexe central la oran jiray iyo muxuu ahaa saldhiga meesha Cabdi Casiis iyo saldhiga Wondere
marka maxamed maxamed jeelle oo isna dhalinyaro markii dambe dagaalada lagu dilay wuxuu ahaa ayaamo dambe lagu dilay waa isaguna wuxuu ahaa centrale markiiba adigu groupkii waa ka hormaray markiiba laba xidig laga dhigo kacaanka baa la qabsaday oo la shaqeeyay anagu dhalinyaro aan ahayn qabiil iyo waxa kuma aan shaqeynayn markaa soo ma garan markiiba waa leedahay waxaan ku jiray dalacsiin sanad markaan xoogaa laba xidig la noqdo sanad kadibna waxaaba laga dhigay aniga waa la soo bedelay kabtanna waa la siiyay direct account xisaabaha guud oo biliska laga dhigay maadaama shaqadii aan ku fiicnaan aniga iyo ninka la jalay kul waa nala ka hormariyay kabtanku markaa wuxuu u dhigmaa janan ma jiraan waa janan markaas dhowr janan baa jiray oo kaliya baa jira markaas noloshu waa fiicnada ninka kabtanka wuxuu u dhignaa janan buu u dhignaa marka noloshaasaan ku jiray kabtankiinimadayda markaan shaqeynayo mar dambe waxaa isku dhacay marka muusad bude ninka la yiraaho taliye bilis waxa ahaa jaamacada ku xigeenna wuxuu ahaa ninka la yiraaho saxardiid ku xigeen koowaad baa ku xigeenka labaadna muusad bude samantar buu ahaa janna muusad bude samantar isku meel baan ka wada nifsoo xaafun weey qaybtana waa wadaagnaa laakiin group baa jiray marka anigu xooga aan ciriyay xagga aan ku ciriyay daraf xisaabaadka ku cirishay markaas jaamacada waxa laga dhaadhiyay ninkan labadan waa walaalo soddoba samantar iyo Cabdullaahi Saciid samantar isaga jaamacad aan baaris fiican gelin waa marka aniga waxa la tooray cadale waxa laga dhigay diisi cadale la tooray bilis waa laga saar bilis waa laga diisi waxa laga dhigay diisi cadale ayaa diisi laga dhigay jaamacada uu ogaaday wixii ku soo celiyaa buu yiri maya baan say soo celi diisi aan ku shaqaysanayay joogay meesha laakiin isku maana xumaan isaga jaamacada wali sidii oday noogu ahaa wuuna ogaaday qalad inay arrintu ahayd وأنا رجع شقيستي قولي أما استريسي كاهو دون أي إني حوجا وعلميا هيك شقيستي لكن أضيع أبو هارونتي وعاد وفي عن واركا وحلكة وافعنا لما مركبة كد جامعة مركب بدل جامعة حلول دي بي نكل يراها متكدي وهالشيء اللي قصو الشيء ولفوف ما لقصو ده استقع لقى دقيقة تليه جامعة يرانا وحلول لقى دقيقة وزير كا دولة هوس أي لقى دقيقة markuu soo noqday aniga markiiba wuxuu iga dhigay marka hore hoggaan buu ii dhiibay mijir baan markaas qaatay hoggaan baa la ii dhiibay hoggaanka isgaarsiinta dabeedna waxaa la bedelay hoggaanka caafimaadka isbitaal Madiina ayaa la bedelay soko ayaa la bedelay hoggaanka caafimaadku de waxa uu isaga xukuma biliska caafimaadkiisa Hargeysa isbitaalada Hargeysa muro isbitaal Banawala baydhabo isbitaal Banawala hoggaanku ahaa isbitaalkana wixii wuxuu ahaa dhakhaatiirtu waxay leeyihiin waxa kuma ninka wuxuu ahaa dhakhaatiirta adigu maamulka oo dhan oday ka tahay laakiin dhakhaatiirta waxa jira nin oo mas'uul ka ah oo dhakhtar ah baa nin doctor Yusuf loo jiray hadda waa joogaa boos joogaa markaa wada shaqeynayay oo ka ahaa wuxuu ahaa dhakhaatiirta madax u ahaa dagaalka sanad waxaan joogay aniga isbitaalkan xukuma madax baan ka waa galay dagaalka waa galay waxaan ku jiray hoggaan baan ayaa ninka dilaya daraawiishta waxay u baahan yihiin infirmiyeyaal bay u baahan yihiin marka ilaa Hargeysa ilaa inta laga dagaalamayo ciidan baan tababarayna dhowr boqol oo sarkaal baan dhowr boqol oo dhakhtar baan diray la tababarayna marka aniga food cadana waxaan batay food cadda oo marka agaasimo guud waxaan taageernaa joognaa boorama ma joognaa